Barakaaliyaashan oo ka tirsan jaamacadda ummadda oo gaaraya 16 ruux ayaa fursad waxbarasho heerka labaad ah waxay ka heleen jaamacado ku yaala dalka Talyaaniga kadib markii dib loo soo celiyay heshiis u dhaxeeyay jaamacadahaasi sidoo kale jaamacadda ummadda ka oo dhacay burburkii dalka ka hor aqoon-yahano kala duwan oo wax ku soo bartay fursadaha waxbarasho ee dawladda Talyaaniga siisay jaamacadda ummadda barayaal ka tirsan jaamacadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ka qayb galay munaasabad sugootina oo loo sameeyay barakaaliyaashan oo jaamacado ku yaala dalkaasi ku soo sameyn doona takhasusyo kala duwan oo baahi loogu qabo dalkaas sida uu sheegay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Professor Maxamed Axmed Jimcaale waxaa jiray heshiis naga dhaxeeyay anaga iyo dawladda Talyaaniga jaamacadda ummadda dawladda Talyaaniga oo ahaa in la dhiso shaqaalaha waxbaridda ee jaamacadda ummadda academic staff waxa kan loo yiraahdo waddan Ingiriiska marka ardayda markay soo dhawaadeen afarta ugu horeysa oo ugu dhibca badan markii la fiiriyo waxa kan la yiraahdo CGPA-ga waxaan luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo ugu dhibcaha badanna waxaan go'aansanay inaan u qaadano barakaaliyayaal marka 16 kan kuleedood kuliyad walba afartii ugu dhibcaha badneed ee 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 galay ayaanu qaadanay Senator Mahdi Daahir Sheekh oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa barakaaliyaashan u sheegay inay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee yaala dalka Talyaaniga maadaama uu ka mid yahay wadamada ay ku yaalaan jaamacadaha ugu facaweyn dalalka dunida Talyaanigu wuxuu leeyahay warshado yaryar hadana wuxuu ku jiraa todobada waddan adduunka ugu qaanisan wax soo saar kala kamid horta taasna u deema la'aanina waddanka kale wuxuu leeyahay tourism kale oo inaad barataan oo waa ka duwan yahay marka aad fiiriso Jarmalka iyo Faransiiska iyo kuwaas waa ka duwan yahay taariikh gaar waddankaas leeyahay mid kamid ah barakaaliyaashan helay fursadan ayaa madasha ka sheegay in mas'uuliyadda la saaray maanta ay u qaadan doonaan mid ay dalka iyo dadka ay dib ugu soo celiyaan taas waxay tusinaysaa in qiyamkii iyo dadnimadii ummadda Soomaaliyeed ay dib u soo laabatay annagana waxaan ballan qaadanaynaa oo waliba aynu ognahay waana hilmaansanayn dadkii ilaa madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa meesha ugu hooseysa dadkii maanta adeegas bixinayay ee noo adeegayay ee qaadumiinta waxay naga doonayeen waxay ahayd in ummadda Soomaaliyeed intaan wax baranno in nafsadeena ku anfacno markooda marka labaadna in dalka iyo dadka inaan ku anfacno waan ogsanahay in sidaas wax loo bariyay waxaan rabnaa haddaan tagno insha Allah Ilaahay hadduu qadaro inaan horta waxbarashadii noo diray inaan ka dhamayno marka koobaad marka labaadna wixii aynu soo baranno inaan dalka ta kula soo laabano ummadda Soomaaliyeed aynu uga faa'iideyno wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Jaabiri ayaa ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadaha la siiyay oo aad u malaysid ma taqaanaa fursad diyaarsan inay tahay waxaan rajaynayaa in aysan rajadeena inaynu lumin oo waxaan leedin diray oo Soomaalinimada ku heshan horta inaad markuu horeysa aad ka soo mir dhalisaan waa ku rajaweynahay barakaaliyaashan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee nasiib u helay inay waxbarasho ka helaan heshiisyo ay horay u wada galeen jaamacadda ummadda iyo sidoo kale jaamacado ku yaala dalka Talyaaniga Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.